dhinaca kale qaybtan aan u gudubno ayadana waa qixidda reer Israa'iil ay badda ku qaxayaan. waxaa la sheegay sida qoraalkan iyo maabkan idinka muuqda in dad tiro badan oo hadda ciidda ka badan dhinaca iyo badda ilaan elboorkii waa xiran yahay kow. sidaas oo kale dowladda Israa'iil waxay mamnuucday oo weliba ay ganaax dul saartay diyaaradii timaada oo shakhsi ganacsi u socda ama raba inuu macnaha wax keeno iyo hal waa la ogol yahay, laakiin diyaarad dad qaadi karta celin karta ma lahan. maxaa yeelay arrintaas dalad in shalata la arkay, yani diyaarad lagu iibsanayo tikadadeeda kumanaan ilaan dadka inay fakadaan ay rabaan. siday ahaataba sida idin muuqata waxaa dabcan Israa'iiliintii ay u qaxayaan dhinaca iyo Cyprus sida qoraalkan ka muuqda ee maabkaba, ayagoo badda ku baxsanaya dooman iyo maraakiib iyo kada iyo kolley waan arkaynaa Israa'iil waxay ka soo saartay arrintaasi. dhinaca kalena waxaa bayaankan soo saaray waa shirkadda maamusha korontada Haifa iyo sidaas oo kale shidaalka nadiifintiisa kambaniga guud ahaan labadaasi maamula. wuxuu leeyahay waxaan caddaynaynaa in dhaawac xoog badan oo soo gaaray qaybtii koronto siinta iyo sifeynta shidaalka. arrintaasoo dabcan sabab ay u ahayd duqeyntii xalato ay Iiraan ku samaysay. waa sida qoraalku uu yahay. macnaheedu waa maxay? jug xoogana gaartay, waxayna ku qiyaasayaan intaasoo milyan oo dollar inuu ku bixi doono dib u hagaajintooda. laakiin waxay dhaheen xaaladan hadda lagu jiro inaynan suuragal ahayn in dib loo hagaajiyo arrintaasi. maxaa yeelay xaaladda waxa ay tahay hadda aan hadlayno maxaa dhacaya, yani weerar socda. Haifa iska dhaafe, Tel Aviv iska dhaafe, magaalooyin tiro badan oo Israa'iil ayaa sida u gubanaya. kanna halkaasaan uga haraynaa. okay, aan u imaano marka arrintan kale oo ah gabadhii ayadoo dabcan warinaysa live-na ku jirta telefishinka Iiraan hal mar qarax oo ku dul dhacay kadibna intay naxday waatay macnaha ka istaagtay, inkastoo si degan ay uga kacday nixitaankii kadib. laakiin almuhim arrintaasi hadallo badan ay dhalisay geesinimadeeda iyo macnaha sida hadday qolooyinkan kala ahaanayeen intay dhulka isku rafiyaan waa samayn lahaayeen. almuhim Iiraan waxay sheegaysaa sida akhbaarta aad arkaysaan oo degdegta ah, waxaan sawaariikhda balistiga ku weerarnay goobtii naga soo weeraray oo telefishinkeenna macnaha lagu beegsaday ama laga soo beegsada dheh, goobtaasaan weerarnay. goobta waa maxay? waa qayb ka mid ah saldhigyada Israa'iil oo haddadan caawadan ku socdo, yani weerar aan caadi ahayn, duqeynaa ku socota. ma kaas kaliya laa, akhbaaraa soo baxaysa. videogii kan ka horeyn waan kusoo sheegay oo ah telefishinka 13aad ee Israa'iil in qaybo ka mid ah oo tiro badan macnaha dabaqadiisa ilaan xaafad oo kale ku fadhiya. xaafad ma dhahay dabcan, afwan, waa adiga dabaq laakiin dhul baaxad leh ku fadhiya. marka qayb ka mid ah ayaa gubanaysa. waxaana arrintaa keenay saaruukh Iiraan ay soo tuurtay oo ku dhacay. arrintaasi videoga haddaan ku sheegay, faahfaahinta soo baxaysa waxay tahay dabdamis inuu eeriyadaasi joogo, la xirayna. ogowna aan kugu daro in Israa'iil ay diiday kana qaadatay kaamirooyinkii live-ka wariyaasha ay ku soo warinayeen. marka wararka la helayo dhammaantooda waxay u badan yihiin kuwa taleefanno lagu soo dusinayo kow, iyo sidaasoo kale kuwa markaasi laga duubayo ama dhinaca Lubnaan ha ahaato ama dhinaca maxaan ku dhahay daanta galbeed Falastiiniinta ay duuban ha ahaato, iyo kaamirooyin wariyaal qaar iyo dadka qaar iyo gaar ahaan Israa'iiliinta naftirkooda taleefanadooda ay ku soo duubayaan. intaa waa intii ugu dambeysay hadalka Trump ugu weyn. waan arkaynaa waxa dhaca iyo caawa oo Tel Aviv run ahaantii waxa ka socda ee holaca aan la malaysan karin. intaasaan kusoo koobaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa dugsiga Al-Buruj Qur'aan Online oo ubadka qurbaha ku nool ku barbaarinaya barashada Qur'aanka Kariimka. ما القارعة وما أدراك ما القارعة. dugsigan ayaa wax ka dhiga macallimiin khubara kuwaas oo aqoon xeel dheer u leh fidinta diinteena Islaamka, iyadoo ubadkeena lagu barbaarinayo barashada Qur'aanka Kariimka, asaasiyaadka cilmiga shariicada Islaamka sida fiqiga, tafsiirka, caqiidada Islaamka, ducooyinka iyo waliba farqurxinta higaada luqadda Carabiga. sana dugsiyeedkan waxa uu qaadanaya arday kooban kuwaas oo kala jooga dhammaan daafaha dunida, waxaana duruusta ardayga lagu soo gaarsiinaya aaladaha Skype-ka, Telegram-ka, WhatsApp-ka. haddaba waalid ubadkaaga keen dugsiga Al-Buruj Qur'aan Online adigoo ka wacay taleefanada shaashada kaaga muuqda. balanteenu waa Al-Buruj Islamic Qur'aan. bishaaro ma doonaysaa in waalidkaaga oo dhintay ama geeriyooday ama xanuunsan oo sariiryaal ah in lagaaga cumreeyo inta lagu guda jiro bilaha xurmada leh? wax qiyaas $300 ayaa lagaaga cumreynayaa waalidkaaga, waxaana fursaddan qaaliga ku siinaysaa shirkadda xajka iyo cumrada ee Taqwa oo ku samaysay qiimo dhimistan ballaaran. waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cumradu u dhacday, waxaana shaqadan qabanaya culimo aqoon u leh. haddaba si aad uga faa'iidaysato fursaddan qaaliga ah, la soo xiriir shirkadda xajka iyo cumrada ee Taqwa xaj and cumra adigoo kala soo xiriiraya taleefanada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda.
أنوار القرآن adduunyadan dhaqaaqdee aadmigii horu maray agabyada la yaab kale ayar wada adeegsaday adoo aqalkaaga jooga anwaarul qur'aan online waxa ay ku diyaarisay barashada qur'aanka kariimka iyo xifdigiisa axaadiista iyo adkaarta iyo sidoo kale barashada higaada qoraal iyo akhrin culumta shareecada sida fiqiga tafsiirka iyo weliba luqadda carabiga waxaa halkaa kugu diyaara macallimiin awood u leh inay adeegsadaan luqadda ingiriiska iyo afkeena hooye ee soomaaliga waxaadna kala xidhiiri kartaa nambarka shaashada kaaga muuqanaya أنوار القرآن أونلاين مدرسة نور العلم لتحفيظ القرآن الكريم waxa ay guud ahaanba dadka Soomaaliyeed ugu bushaaraynaysaa in ay soo kordhisay bixinta shahaadooyinka iyadoo ay ogeyn in madarasadu ay horay u bixin jirtay quraanka kariimka guud ahaanba xifdintiisa sidoo kale luqadda carabiga oo guud ahaanba la barayo ardada kutubta ay bixiso ama dadka barto madarasadu waxa kamid ah kitaabka sifatu salaati nabiga sallallahu alayhi wa sallam sidoo kale waxa la barayaa kitaabka hidayatul mustafiid iyo sidoo kale dadka kala duwan ee carabiga guud ahaanba sidoo kale waxa la barayaa arbiciinka iyo guud ahaanba tarbiyada islaamka iyo carabiga waxa ay madarasadu bixinaysaa dhamaadka guud ahaanba casharada shahaado dhamaystiran oo lamida kuwan aad u jeedaan la siiyay arday dhamaysatay madarasada iyo sidoo kale waxyaabaha ay bixiso haddaba kala xiriira telefoonada shaashada ka muuqda ee WhatsApp iyo sidoo kale kuwa caadiga ee shaashada ka muuqda guud ahaantiinba adigoo mobilkaada ama laptopkaada ama computerkaada iyo adigoo sariirtaada jiifa sidaa dabcan online-ka lacag xalaal waa samayn lahayd dulmidi.com waxaa loo sameeyey si uu kaaga caawiyo su'aasha aad muddada dheer ka fikiraysay halkan waxaad ka heli doontaa koorso muuqaal ah oo si toos ah ku tusinaysa fikrado dhab ah oo lacag laga sameeyo online fikrado uu isagu isticmaalo ilaa maanta adiga ayaa noqon kara qofka xiga ee guulaysta riix linkka hoos ku qoran si aad u bilowdo hadda